وكم فاجأ سنة المال أن قبل ما قال وأرتوا كان كل جوجا أمين وناكسن حلك سواء يكون هايد الهان تيمبا جيلن ميديا وحيدي هايسا ورئيسي دفيا نادرة ورئيسي يوجوه الرئيه أو بحيو شخصي يوجوه هذا الحين تبنى سياسة الصومالي دا سنوين كلا صور عفاي ورئيسي كانوا حنبارسان حوجة حساسية إياك ورميد الدعدوين كدلك صومراي سنوين كلا صور عفاي أيان الله يعلناي أما كقعنا فهد ياسين حاج الداهر وسوق قبتي أفرحل أو كراها أقاسمه مدحتويو أقاسمه كحجان نيسا أقاسمها سردونك إيا نبسوجد قرنك النيسا يلا تليها أمنك قرنك إيه مدحوينها الصومالية أفرتشجو إيا حلهين تفهد ياسين إيه شنصنو إيا بلوين ديرالا وحي ليهن دعدوين كوريكسن وحساسية وأمركي كوباد أو فهد ورينتا ستوصا نوغو قلادو إنان وريسي كليه لنو ورعلمها عن وريسي كجبقون دونتان وحكمدا كو وحنا هي كوريس أيضا أي بربارسي أيضا أي كوريسي سويالك شخصية فهد ياسين كوريتان حرفض يعني فهد ومعلم دكسي قرآن وصومري نلاش بالله ويدي وحنك بالله بيدكسي قرآن معلم كنقضه إيا كمدا هنشاها كوحاها سلفقا aniga waxaan kamid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-ittixaad islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa dhammaan su'aalaha hoos imaanaya su'aasha weynaya waa kuma Fahad Yaasiin laba maamulkiisa nisa oo ay ku jiraan su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ahaana waxyaabaha sida weyn dadka Soomaalida oo dhan ay jeclaan lahaayeen xog badan inay uga helaan waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray saddex doorkiisii faragelinta dawlad goboleedyada ee ay ku samaysay dawladdii oo xubinta sare ka ahaa ayna u horeysay Jubbaland dhacdooyinkii qarsoonaa ee Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dhex maray hataa waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya muxuu Fahad ka og yahay waanuna ka warsan doonaa maanta waxaan aaminsanahay Jubbaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka ay Jubbaland la samaysay waagaas afar warinta kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax waa markii koobaad ee Fahad kiiskan furo ka hadalkiisa Ikraan waa aqaana ayadana aqaana qoyskeedana aqaana hooyada ma aqaana familkeedana aqaana xoga xasaasiyana waa uu noo sheegay waana diihaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe ashee waa runtiisa aan mareena wooge waa runtiis shan ruraanshaha isku milanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo kooxda argagixiso ee Al-Shabaab lix NISA maanta waxaa xukuma mahadsalaad waa maxay aragtidaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahadsalaad aqoon ma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen muxuu og yahay oo gaar ah oo waraysiga uu ku sheegay waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayo toddobo dhalinyaro Soomaaliyeed ama askar hadba sidaa doonto ugu yeer ayaa laga qaaday Soomaaliya la geeyay Eritrea maxaa xog ka hayaa Fahad Yaasiin hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro dhammaan su'aalo waaweyn oo la xiriira malafkaas ayaanu iyana weydiinay sideed haddii laga guulaystay madaxweyne Farmaajo Fahad oo saaxiibkiis ahaa iyo isaguna ay bannaan joog yihiin maanta dawladda Qatar oo saameyn xoogan ku lahayd Soomaaliya saaxiibna la ahayd Fahad Yaasiin xiriirkeedu ma sii jiri doonaa Fahad iyo Qatarse maxay tahay dunta isku xirtaa Fahad institution ma aha hay'ad ma aha qof baa hadda maxay la soo xiriirayaan dawladda Soomaaliya madax ka sagaal shantii sano ee la soo dhaafay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gaar ahaan saameynteeda gobolka ma dalal kooban ayay u xirnayd oo lagu raali galiyay dal hay'adna wasuugadeed baa indhow ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah toban maxay tahay qisada Fahad Yaasiin iyo Djibouti waraysigan gaarka ee aanu la yeelnay Fahad Yaasiin Xaaji
intaas oo keliya kuma koobna haddii siyaasadda soomaaliya in lagaa badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha doorashada mar baa gashaa ood guulaysan mar kalead geli ma guulaysanaysid waa natural adduunka o dhan bay ka dhacdaa waa isku darka nolol waryannimo shaqo siyaasi iyo xogo surdoon oo culus waxaana aannu wax badan kaga ogaan doonnaa su'aalo badan oo aysan sahalahayn inay bannaan ka yimaadaan haddii waraysigan uusan naga oggolaan waraysigan waxaan u tami doonnaa qaybo kala duwan oo halkan aannu marba qayb idinkugula wadaagi doonno ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda waa kuma faahfaahsanaad meel aan ka bilaabo ma aqaan waa horta waa kan kula jooga amin wanaagsan xilli kastoo ay kuu tahay idilhaanteenba gaylan media waxay idii haysaa waraysi dhif iyo naadir ah waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyo shakhsigii ugu hadalhaynta badnaa siyaasadda soomaalida sanooyinkii la soo dhaafay waraysigan oo xambaarsan xogo xasaasiya iyo ka warramidda dhacdooyinkii dalka soo maray sanooyinkii la soo dhaafay ayaannu la yeelannay ama ka qaadnay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo soo qabtay 4 xil oo kala ahaa agaasimo madaxtooyo agaasimo ku-xigeen NISA agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NISA iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya 4 jago iyo xilhaynta Fahad Yaasiin ee 5 sano iyo bilooyin dheeraad ah waxay leeyihiin dhacdooyin ku wareegsan oo xasaasi ah waa markii koobaad oo Fahad warinta si toos ah nooga ogolaado inaan waraysi kala yeelano warcelimaha aan waraysigan kaga bogan doontaan waxa kamid ah waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay sooyaalka shakhsiyadda Fahad Yaasiin koritaan xirfad يعني فهد ومعلم دكتور قرآن وصومري noloshii bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan macallinka noqdo iyo kamid ahaanshaha kooxaha salafiga ah aniga waxaan kamid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-Ittixaad Islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray waana ku faanaa dhammaan su'aalaha hoos imaanaya su'aasha weyn ee ah waa kuma Fahad Yaasiin 2 maamulkiisa NISA oo ay ku jiraan su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ahaana waxyaabaha sida weyn dadka Soomaalida oo dhan ay jeclaan lahaayeen xog badan inay uga helaan waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ugu dhex jiray 3 doorkiisii faragelinta dawlad goboleedyada ee ay ku samaysay dawladdii oo xubinta sare ka ahaa ayna u horeysay Jubbaland dhacdooyinkii qarsoonaa ee Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dhex maray hatta waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya muxuu Fahad ka og yahay waanuna ka warsan doonaa maanta waxaan aaminsanahay Jubbaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka Jubbaland la samaystay waagaas 4 warinta kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax waa markii koobaad ee Fahad kiiskan furo ka hadalkiisa Ikraan waa aqaanaa ayadana aqaanaa qoyskeedana aqaanaa hooyada ma aqaanaa familkeedana aqaanaa xogo xasaasiyana waa uu noo sheegay waan idii haynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe ashii waa runtiisa aan mareena uu og yahay waa runtiis 5 rurnaanshaha isku milanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo kooxda argagixiso ee Al-Shabaab 6 NISA maanta waxaa xukuma mahadsalaad waa maxay aragtidaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahadsalaad aqoon ma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen muxuu og yahay oo gaar ah oo waraysiga uu ku sheegay waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinay 7 dhalinyaro Soomaaliyeed ama askar hadba sidaa doonto ugu yeer ayaa laga qaaday Soomaaliya la geeyay Eritrea maxaa xog ka hayaa Fahad Yaasiin hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro dhammaan su'aalo waaweyn oo la xiriira malafkaas ayaanu iyana weydiinay 8 haddii laga guulaystay
madaxweyne farmaajo fahad oo saaxiibkiis ahaa iyo isaguna ay bannaan joog yihiin maanta dowladda qatar oo saamayn xooggan ku lahayd soomaaliya saaxiibna la ahayd fahad yaasiin xidhiirhkeedu ma sii jiri doonaa fahad iyo qatarse maxay tahay dunta isku xirtaa fahad institution ma aha hay-ad ma aha qof ma aha hadda maxay ila soo xiriirayaan dowladda soomaaliya madax ka sagaal shantii sano ee la soo dhaafay siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya gaar ahaanna saamaynteeda gobolka ma dalal kooban ayay u xidhnayd oo lagu raaligeliyey dal hay-ad nabadsugideed baa indha u ah jiritaankeeda mas-uul u ah muuqaalkeeda u ah 10 maxay tahay qisada fahad yaasiin iyo jabuuti waraysigan gaarka ee aanu la yeelnay fahad yaasiin xaaji intaas oo keliya kuma koobna haddii siyaasadda soomaaliya in lagaa badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha doorashada mar baa gashaa ood guulaysan mar kalead geli ma guulaysanaysid waa natural adduunka o dhan bay ka dhacdaa waa isku darka nolol waryannimo shaqo siyaasi iyo xogo surdoon oo culus waxaana aannu wax badan kaga ogaan doonnaa su'aalo badan oo aysan sahalahayn inay bannaan ka yimaadaan haddii waraysigan uusan naga oggolaan waraysigan waxaan u tami doonnaa qaybo kala duwan oo halkan aannu marba qayb idinkugula wadaagi doonno ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xidhiir nambarada shaashada kaaga muuqda waa kuma faahfaahsanaad meel aan ka bilaabo ma aqaan waa horta waa kan kula jooga amiin wanaagsan xilli kastoo ay kuu tahay idilhaanteenba gaylan midiya waxay idii haysaa waraysi dhif iyo naadir ah waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyo shakhsigii ugu hadalhaynta badnaa siyaasadda soomaalida sanooyinkii la soo dhaafay waraysigan oo xambaarsan xogo xasaasiya iyo ka warramidda dhacdooyinkii dalka soo maray sanooyinkii la soo dhaafay ayaannu la yeelannay ama ka qaadnay fahad yaasiin xaaji daahir oo soo qabtay 4 xil oo kala ahaa agaasimo madaxtooyo agaasimo ku-xigeen niisa agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka niisa iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya 4 jago iyo xilhaynta fahad yaasiin ee 5 sano iyo bilooyin dheeraad ah waxay leeyihiin dhacdooyin ku wareegsan oo xasaasi ah waa markii koobaad oo fahad warintan si toos nooga oggolaado inaan waraysi kala yeelanno warcelimaha aan waraysigan kaga bogan doontaan waxa ka mid ah waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay sooyaalka shakhsiyadda fahad yaasiin koritaan xirfad يعني فهد ومعلم دكسي قرآن وصومري noloshii igu bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan inaan macallin ka noqdo iyo ka mid ahaanshaha kooxaha salafiga ah aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-itixaad islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare weliba ka gaaray waana ku faanaa dhammaan su'aalaha hoos imaanaya su'aasha weyn ee ah waa kuma fahad yaasiin 2 maamulkiisii niisa oo ay ku jiraan su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ahaana waxyaabaha sida weyn dadka Soomaalida oo dhan ay jeclaan lahaayeen xog badan inay uga helaan waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ah ugu dhex jiray 3 doorkiisii faragelinta dawlad goboleedyada ee ay ku samaysay dawladdii oo xubinta sare ka ahaa ayna u horeysay Jubbaland dhacdooyinkii qarsoonaa ee Axmed Madoobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya dhex maray hatta waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya muxuu fahad ka og yahay waanuna ka warsan doonaa maanta waxaan aaminsanahay Jubbaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka ay Jubbaland la samaysatay waagaas 4 warinta kiiska sargaalad Ikraan Tahliil Faarax waa markii koobaad ee fahad kiiskan furo ka hadalkiisa Ikraan waa aqaanaa ayadana aqaanaa qoyskeedana aqaanaa hooyada ma aqaanaa familkeedana aqaanaa xogo xasaasiyana waa uu noo sheegay waana idii haynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambe ashii waa runtiisa aan mareena uu og yahay waa runtiis 5 ruraanshaha isku milanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA iyo kooxda argagixiso ee Al-Shabaab 6 NISA maanta waxaa xukuma mahadsalaad
waa maxay aragtidaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna mahad salaad aqoon uma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen muxuu og yahay oo gaar ah oo waraysiga uu ku sheegay waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabad sugidda soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinaya 7 dhallinyaro Soomaaliyeed ama askar hadba sidaa doonto ugu yeer ayaa laga qaaday Soomaaliya la geeyay Eritrea maxaa uu xog ka hayaa Fahad Yaasiin hal askari oo ciidanka dawladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday hal askari oo ka qayb galay ma jiro dhammaan su'aalo waaweyn oo la xiriira malafkaas ayaanu iyana weydiinay 8 haddii laga guulaystay madaxweyne Farmaajo Fahad oo saaxiibkiis ahaa iyo isaguna ay bannaan joog yihiin maanta dawladda Qatar oo saameyn xoogan ku lahayd Soomaaliya saaxiibna la ahayd Fahad Yaasiin xiriirkoodu ma sii jiri doonaa Fahad iyo Qatarse maxay tahay dunta isku xirtaa Fahad institution ma aha hay'ad ma aha qof baa hadda maxay la soo xiriirayaan dawladda Soomaaliya madax ka 9 shantii sano ee la soo dhaafay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya gaar ahaan saameynteeda gobolka ma dalal kooban ayay u xirnayd oo lagu raali galiyay dal hay'ad nabad sugideed baa indhow ah jiritaankeeda mas'uul u ah muuqaalkeeda u ah 10 maxay tahay qisada Fahad Yaasiin iyo Djibouti waraysigan gaarka ee aanu la yeelnay Fahad Yaasiin Xaaji intaas oo kaliya kuma koobna hadda siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha doorashada mar baa gashaa oo guuleysan mar kale aad geli ma guuleysanaysid waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa waa isku darka nolol wariyanimo shaqo siyaasi iyo xogo surdoon oo culus waxaana aanu wax badan kaga ogaan doonaa su'aalo badan oo aysan sahal ahayn inay bannaan ka yimaadaan haddii waraysigan uusan naga ogolaan waraysigan waxaan u tami doonaa qaybo kala duwan oo halkan aanu marba qaybidu kugula wadaagi doonno ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda